dadkaas reer Falastiin 70 sano ayaa dhulkooda laga dhaqaaji waayay 70 sano inta xagga maalin walba madfac ku rid inta waa la dhaqaaji waayay annaga ma sahlayna in dhulkooda laga soo wado. The history was made for reer Soomaaliya. Madaxweynihii Xasan Sheekh wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee muddo ka badan 40 sano ka soo booqday magaalada Laascanood. Dad badan waxay yidhaahdeen ma imaan kartid, khalaas xabad ba lagu dhufanaya, it's over for you. Like waxa ka horeeyay Siyaad Bare wuxuu yimid 4 ayuu yimid Siyaad Bare asagana uu ka dambeeyay. Sheekh wuxuu yimid the backyard of Somaliland. wuxuu la socday Sacuudi, wuxuu la socday Turkey, wadamada oo awoodda ugu badan ayuu xulufo la sameystay. adag yihiin inay qaranka Soomaaliya inay jibiyaan. uu dhamaatay ma keeni kartid dad Palestine dulkoodii kama rari kartid. Somalia and Somaliland, they're just tools for the military industrial complex. That's all you lost is. Xasan Sheekh waa inuu weerar toos u qaado qof kasta oo cadow ku ah. waa inaad dadku u tustid adaa ka masuula wadankan. diyaarad ha ku tigin Laascanood, waxaad ku tagtaa gaari waxaad ku raacaysaa Muqdisho ilaa Garowe ilaa Laascanood straight to Somaliland. beesha caalamka waxay ku xushmeynayaan awooddaada, kuma xushmeynayaan nin wanaagsan inaad tahay amba inaad dadka ammaan iska siisid. ma Siyaad Bare markuu xukumi jiray wadankan beesha caalamka way ka baqi jireen. why? mucaaradkii oo dhan way ka baqi jireen. why? because awood buu haystay. alaala qofkii asaga ka soo horjeedo uu xili jiray, xabsiga uu ku taxaabi jiray, wala toogan jiray. that's how it is. imika Donald Trump madaxweynihii Venezuela uu qabtay maaha qof asaga xabsiga geenaya ma jirto. Trump wuxuu xadgudbay international law. so Xasan Sheekh waa inuu saas u kala noqdo, waa inuu qof awood leh inuu noqdo oo u tuso wadankan aniga iskale, anaa ka masuula wadankan 3 madaxweyne ma yeelan karto. that's how you get power. speed u yimid wadanka ma laakiin speed the streamer wuxuu islaa Soomaaliya ma tagay. anigu Soomaaliya uu ka qashaafay, Ethiopia buu tagay, Kenya, meelaha kale ugu beesha caalamka yihiin Soomaaliya ha tagin because waxaan oo kale bay ka baqayaan. imagine Xasan Sheekh waxay aaminsan Xasan Sheekh he can't go to Garowe, he can't go to Hargeysa, he can't go to all these places because mucaarad badan baa jira ku dilayaan Al-Shabaab this. so marka dadka waa inaad u tustid inaad awood leedahay, wadankan safe inuu yahay. kasta oo Soomaaliya Laascanood u tagi kara si nabad ah, Hargeysa u tagi kara, Boorama, Gabiley, Muqdisho, everywhere.